degmada Sheekh ayaa ah meel bilixdeedu ay aad u sareyso isla markaasina leh meelo badan oo loo dalxiis iyo tamashla tagi karo indhaha iyo qalbiyada dadka iyagu soo booqdana aad u soo jiidata meelahaasi waxa kamid ah goobtan aanu ku socono aniga iyo kooxda socdaalka igu wehelinaysa goobtani waxa ay jihada waqooyi kaga beegan tahay magaalada Sheekh waxaananu u lugaynay muddo ilaa 2 saacadood ah sida idin muuqata goobtan waxa isxidhay dhir aad u cagaaran hoostoodana ay biyo qulqulayaan iyada oo mararka qaarkood ay nagu adkaanisay inaanu ka gudubno haddana socdaalkayagii maanaan sii hakinay halkii ayaanu ka sii wadnay biyahani ayaa ay noo sheegeen qolooyinka deegaanka ahi in ay yihiin biyo iyagu gu iyo jiilaalba aan gurin iyada oo aan si rasmiya loo garanaynin halka ay biyahani ka soo baxayaan iyo waliba halka ay ku dhamaanayaan iyada oo buuriba buur u sii dhiibayso ayaa haddana aanu muddada 2 saacadooda ka kala gudbaynay goobahaasi aanu maraynay waxa ku yaala beero aad u waaweyn oo ah noocyada beer biyooda loo yaqaano kuwaasi oo ay ku yaalaan qudaarta noocyadooda kala duwan iyo waliba geedo bilixdoodu ay aad u qurux badnayd isla markaasina aad u dhaadheera sida aad daawanaysaan waxa kale oo ay degmadu caan ku tahay 2 geed ee kala ah dhasoqa iyo xayramadka waxa magaalada marka aad u fiirsato aad ku arkaysaa buuro aad u dhaadheer isla markaasina aad u baaxad weyn oo ku gadaaman guud ahaanba magaalada
magaalada waxaa u dhammaystiran guud ahaanba adeegyadii ay lahaan jirtay magaalo. gudaha xaafadaha magaalada markaan dhex marnay waxaanu ku aragnay in ay shaqaynayso korontadii ama leydhkii iyada oo waliba 24 saacadoodba ay u baxdo. waxa kale oo iyana kamid ah adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida adeega caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta noocyadeeda kala duwan haddii ay ahaato tan xawaaladaha iyo isgaarsiinta dhanka telefoonada iyo waliba internetka. miyar haddaan ka yar warramo waxbarashada degmada Sheekh waqtiyadii hore marka la walgooda dhirigsan yahay Somaliland afartii madaxweyne soo maray badeena saddex ka mid halka ka baxeen wala odayaal ma ku soo qorteen daayirka ka marka laga reebo saddex madaxweyne kale ka joogay marka madaxweynaha Xuseenayo iyo ladii ka sii horreeyay Cabdiraxmaan iyo Maxamed Ibrahim halkan wax ku barteen intii dalka lagu soo noqday waxbarashada degmada Sheekh daasa laga soo bilaabay imikana waxay maraysaa heer 42 dugsi ku yaala 42 ka dugsi waxay u kala baxaan 12 dugsi oo dhexe afar secondary iyo 26 hoose halka waxaad ka garan kartaa marka degmada in ay iskuuladu ku fara badan yihiin culeyskeeda ay leedahay. waxaan filayaa iskuulada halka ay nooga dhisan inay inta dawladdu maalgelistay, dawladdu wax qabatay, dawladdu dhistay shaqaalaha kale marka soo qaado inta wax ka gurnaysan mushaarka qaata meesha markaad eegto 187 qof ayaa mushaarka qaata degmada oo dawladdu siisa. marka tira ahaan eegtid iskuulada iyo ardaydoodaba ma aha wax yaryar oo 5,900 bay ku leedahay tirada ardayda iyadoo marka warbixinta yar inta ku daro iskuulka magaalada gudaheeda iskuulada ugu waaweyn waxa ku yaala magaalada gudaheeda waxa ku laan leeyahay kara sheekhinay ku taalo jaamacadda Daxnaa xoolaha iyo beeraha iyaduna marka lagu daro secondary soos ay ku jirta degmada iskuulkaas waa iskuulada ugu qaalisan marka la eegtid dugsiyada sare ee dalka ku yaala. waxbarashada degmada hal iyo jeeraale intii hore ka faca ku faahay waqtiyadii hore way soo socotay laakiin imika waxaad moodaa in macallimiintiina quality-goodu wanaagsan yahay oo tababar wanaagsan la siiyay kunadii mushaarkii la weysiiyay boqolkiiba 3 ama 2 aan mushaar qaadan laakiin boqolkiiba 98 meelahaas ama 99 mushaarka way wada qaataan macallimiintu. magaaladu waxay leedahay suuq ganacsi oo ay ka adeegtaan bulshaweynta degmada ku nool iyadoo ay hoos yimaadaan tuulooyin badan. waxaa magaalada ku dhex yaala oo aan ka fogeyn cusbitaalkii weynaa ee magaalada Sheekh kaasi oo taariikhdiisu aad u ballaaran tahay mararka qaarkoodna ahaan jiray mid guud ahaanba goboladii Soomaaliya dalkii la isku oran jiray looga iman jiray.
waxaanu goorgalaba dhex lugaynay faras magaalaha oo ay soo camireen bulshada magaalada degan da' kastoo ay ahaadaanba. magaalada waxaa ku dhex yaala maqaaxiyo iyo hudheelada laga cunteeyo iyo guud ahaanba goobaha ay bulshadu ku kulanto. waxaa iyana si toosa u shaqaynaya adeegyada bulshada sida dawladda hoose ee degmadu ay leedahay. waxaanu la kulanay maayarka degmada sheekh ibraahim cabdilaahi cabsiye oo xafiiskiisa si weyn noogu soo dhaweeyay isla markaasina inooga sheekayn doona balqaabka ay u shaqayso dawladda hoose guud ahaan. dawladda hoose horta waxay bixisaa adeegga waxay bixisaa bulshada ayay u bixisaa adeegga. waxaa ka mid ah adeegyada ay bixiso sanitationka ayaa ugu muhiimsan, waa qashin gurista iyo ilaalinta nadaafadda. waxaa soo raacda iyaduna hygiene oo departmentkii ka mid ah. hygiene iyaduna waxaa ku siisaa hadii goor caafimaadka wixii la xiriira allahumma salli ala maxamed iyo ilaalintooda. sheekh haddaan dib ugu soo noqdo dawladda hoose waxay runtii dhisnay muddo fara badan ilaa dawladda afweyne ilaa tan maanta Somaliland way jirtay degmana way ahayd 36 bay markii ugu horeysay degmo qaadatay. waxay ku caan baxday markii hore sheekh oo ay Soomaaliya markii ay iskuulba jirtay ay ku caan baxday waxayna fursad u heshay in iskuuladii ugu horeeyay laga dhiso halkan. taana waxa ugu wacnaa Ingiriiska ayaa markii ugu horeysay waddanka u yimid ayuu sheekh soo degay. بالبلو أكتشوفي كسوت دقيقة مركز روحي بهاي دبتنا كل كيدي بالبلو مو دقيقين هل كان ينقطيني دقيقان كودي كدكتان ساسي كوبيلامتي مركا إني دسمي على سمايستان إني كمبيني يقولون ترى الشل إيو حاكينا نشدالكا يعني مركي دمنا إني كينا اللهم صل على محمدين بسكول الذي لا بلابو دكسي جوري وطن كان لقى لسه دكسي دحاها أي شيخ لقى لسه oo ay ka soo qayb galeen ama ka soo bixeen waxbarashada ka soo dhameysteen madax badan oo Soomaaliya ama Somaliland basooman ka soo noqday madax ka soo noqday. waxaan sanayn Cabdiraxmaan Tuuriye ka mid ahaayeen Maxamed Ibrahim Cigaaliye ka mid ahaayeen iyo intii la midka ah laalkaad ilaa siinayaan imka ugu dambeeyay madaxweynaha waa halka la soo maray. waxay ahayd meel dadka kulmin jirtay oo aan qariibin jirnay oo injiin qofka soo qariib Soomaaliya guud ahaan gobolladeeda waa la isagay min jiray halkan aan loo iman jiray. waxa isaguna inta dheeraa isbitaalka halkii ku yaala oo isaguna ahaa isbitaal muhiim ah berigi hore ahaan jiray ayaa isaguna sidaas la mid loogu iman jiray Soomaaliya oo dhan gobolladeeda looga iman jiray. waxyaalaha ay sheekh markii hore ku caan baxday allahumma salli ala maxamed intii dambana Somaliland ayay kala mid ahayd horumarkeedii iyo burburkeedii iyo dhibaatadii dawladda afweyne soo gaarsiiyay waxa soo dhan Somaliland kale kala mid intii dhaqaalaheed halkan aad uma badna degmada waayo population-keeda yar ganacsateeduna waa yartahay marka cashuuraha u soo xirooda halkan dawladda hoose aad bay u kooban yihiin wax yar oo xadidan waxay hadii goraale ku filan yihiin laba qodob baa in majorka aan ku ilaalinaa mid waa nabadgelyada oo poliiska iyo arrimahooda ku la xiriira takalna waxa weeyaan nadaafadda iyo hygiene in qashinka waxa lagu guro intaas baan ku ilaalinaa maahane ma laha dhaqaale fara badan oo horumar badan loogu sameeyo. fursadda aanu helay runtii waxa weeye iyadana aan u baahan in la tilmaamo waxa weeyaan waa fursadda GPLG-ga oo degmooyinka waaweyn gobolada inoo ah sida Berbera, Hargeysa, Boorama, Gabiley, Burco, Oodweyne iyo wixii la mid ah
toddoba degmo caynkaas ayaanu kula jiraa mashaariicdan hay'aduhu ay bixiyaan United Nationsku ee GPLG-ga la yiraahdo kuwaas waxaanu ka helnaa fursad in sanad walba ugu yaraan 2 mashruuc aanu ka fushano oo lacag $200,000 ilaa $250,000 marba sida loo bixiyo ayaanu ka helnaa 2 mashruuc inuu fulisaa si qurux badan ugu fulisaa laamiyaan ka samaysanay اللهم صل على محمد اسكول فربضان بان كسم كلسناي waxaanu kala kalisanay اللهم صل على محمد ay caafimaadka MCH iyo wixii lamida adeega bulshada ayaan hadiye goor inta badan aanu ka muhiimadiisa ka raacnaa infrastructure weeyo waxa kala soo raaca wadooyinka iyo wixii lamidka markay u soo degno tan kala deegaan ahaan ee shaqadiinu tahay bal waxaad nooga warantaa degmada iyo sida ay u shaqayso xildhibaanada iyo inteeda ka koobayeen xildhibaanada deegaanka Sheekh waxa ka koobayay 3 wasi 3 marka caqabadaha ugu badan ee marka qaarkood soo wajaha marka shaqadiina gudanaysa maxaa kamid ah waxa kamid ah xildhibaanada 3 kaas waxa ku jira 4 xildhibaan ayaa ku hayay أنا ما يمكن أن أقول واحد ما يلقى لي. وكيف بدي صبرت؟ ما يمكن أن أقول. ولي بالله كثير. وكان قلت لي كم بيوم ما يلا إلا ولا تصل أوي بيتنا كان ما يبغى. فشيء مرة تلي شيء مرة وصلت في قريب هو شيء كان ما بده. يا سلام. أنا محل فرح قبل النص وقع ما يرجع. فرح قبل كتير برا. runta caqabada laga haysto waxa weeye waa tahaysato in deegaanada meelaha kale deegaanadu ay ka dhisay waxa weeye waa ku cusub oo xildhibaanada cusub oo gacanta ku yar tahay hawsha ay ku yar tahay tababarada ku yar berigii hore kula deegaanada hore tababarada qabitaanka ugu badnayd oo tababaro badan sii jirtay tababaradu ku yar yihiin marka shaqadiisi waxa laga yaabaa inaan إنه هو يرى فريستة لبري هوري مود شريني إلى معمولة يا ليوا دولة عاصمة دولة عاصمة شقيقية يا وشغالة أمر يا و الجيش البري بيجا قصدي أو سيمنار ولا تشتري واحد هذا أنا سيستاج شرينه بس وشيك بالله برها ورمحوها شيك يا ورشيك مو قرار بركالة يسوي أو بري يسوي بركالة وين بركالة سوي أنا تأخذ بركالة تاسون وين وكل سبب الحين قليل لكن حاجة مجتمع عدد ماذا كورهن عشور تسليم سوبويان حاجة بلوك إسقابسي بدن باكتشرة دموين بدن وضلك كميدا تايد ما تكفيه ذهين والله مركل إسقابسي إياه حاجة بلوك إياه واحد ما يكوي شوفي يمكن كذا يقولون تاجر تيجي مكان كذا نوفر يعني كل ساعة كلها هتيجي على هذا لكن واحد وياه هتنا مركل ويا مقالين كلام أنا قوي دمتين كاسون الوين وياه حقيقي يسوق الساعة اللي بسديد أنا واحد لما تيجي تقول إنه بسديد يطلع يسنا مرة يا كهوي أنت هو كمان روح كمان نقابلوني أنا قابلوني مكيدة هنروح يا مكان نقابلونه وحي مكيدة أنا بابا كوار أنا بابا يا مكان حنا نو كلاساري بابا أنت لكل على نه هذا أنا نتا سوسنوت كسوشكي marwo khadiija xuseen xaaji xasan waxa ay ku dhalatay kuna barbaartay waxna ku baratay degmada Sheekh marwo khadiija waxa ay ka mid tahay 10 xildhibaan oo dumar ah oo ka soo baxay golayaasha deegaanada Soomaaliland wallaahi haweenka 10 baanu nahay waxaanu ka soo baxnay Boorame Gabiiley Sheekh Laascaanood iyo Ceergaabo iyo Oodweyne marka runtii waxaanu nahay 10 haweena mar kasta oo aanu shirar isugu nimaadno ama maxay ahayd dalada nagaad
haweenka Somaliland oo runtii kaalin mug leh naga qaadatay halka maanta aanu joognana soo gaarsiisay mar wal oo aanu isugu nimaadnaba waxa ay aanu ku wacyigelinaa haweenka inay culayska saaraan inay ka mid noqdaan golayaasha wallaahi horta anigu xildhibaannimadan mintid baan horta ku soo baxay xaqiiqadiina waxa gacan aad u buuxda isiiyay haweenka degmada Sheekh oo si kastaba ha yeelaane runtii iqaatay waqti xaadirkana waxaan doonayaa inaan maayar degmada Sheekh ka noqdo laakiin caqabadaha ay hortaagane iminka intii aanu golaha deegaanka ahaynba fursadda ii diiday waxa weeyaan maxay ahayd toy maayarka iyo maayar ku-xigeenka qabiil baa lagu tagaa mar kasta oo aan miiska soo saaro in bal maanta 6 biloodna ha noqotee lay doorto waxa la yidhaahaa maxay ahayd toy magaaladan 2 reer baa u badan dalkaba had iyo jeer beelay sheegtay laakiin Sheekh 2 reer baa u badan 2 reer mid aniga ah midna caruurtayda ah marka waxay ugu yiraahdaan markaad maayar noqoto yaad metelaysaa reerkeed metelaysaa reerkii caruurta miyaad metelaysaa ma reerkad ka dhalatay baa metelaysaa ila gudoomiye ku-xigeen 2 reer baa isku noqdo haddaan iminka gudoomiye ku-xigeen haddii anigu reerkan ka dhashay noqdo dadkii waxay u qaadeen in hal reer meeshii haysto haddii gudoomiye ku-xigeen uu noqdo reerka caruurtaydu tahayna waxay leeyihiin waxaan u qaadanaynaa inuu hal reer meeshii haysto markaa waxaan soo jeediyey rayi markaa waxaan ku yidhi aan anigu labadiina reerba metelo oo maayar isiiya maayar ku-xigeenna dadka kale deegaanka yaalla haygu xigo taana weli way ka gigsan yihiin oo fursadu imay banayn oo weli codcidi ma siin laakiin aad iyo aad ayaan marun ha noqotay inaan maayar noqdo xoog baan u jecelahay haweenka Somaliland maanta heer fiican ayay marayaan oo ilaa waqtigii aynu dalka soo galnay 19 ilaa waqtigan halgan aad u ballaaran ayay muujiyeen sidaas ay tahay haddana jagooyinka waaweyn ee dalka xoog ugama muuqdaan inkastoo dawladana iminka ay wasiir ku-xigeenba siisay markaa hablaha waxa aan ku dhiirin lahaa inay ku soo dhiiradaan golayaasha deegaanka baarlamaanka iyo maxay ahayd wasiiradaba sababtu tahay danaha haweenka ayaabaan ka maarmayn inay xubin ka mid noqdaan golayaasha sababtoo ah dee haweenku waxay dalka kaga jiraan kaalin aad u muhiima hawlaha dalkana intooda badan iyagaabay khuseeyaan marka waxaan odhan lahaa ka soo qayb gala dhanka xaafadaha magaalada markaad marto waxa aad ku arkaysaa dhismayaal aad u qadiima iyo qalcado ka hadhay goobo taariikhiya dhismaha imika joogna waxa weeye waa daartii ninka dalka xukuumadda Soomaaliland barasaabku ku jiri jiray marka 6 bilood uu soo baxo Sheekh halka ma ku noolaan jiray wuxuu ka deganaa 6 bilood ka bilood joogi jiray marka daartan bay ahayd waxay ku fadhidaa in badan ku fadhidaa halkan ka dambayso waxa jiray xitaa barkado dabaasha iyo ayaa jiri jiray dawayr dunduminimka ma looma ogolaan halka taan shay soo dhaafan iyo daarta iyo cidba looma ogolayn beriga laakiin iskuulku aad u la jaaraha iskuulku la jaaraha halkan soo dhaafnay aanu saxan jiray iyo halka iskuulka iyo aqal kale arki doono macallimiin ku jirtay iyo inta shacab ku baxay dadku magaalada waxa marka ereedan cid kale ma degtin beriga bilaahan bal gurigan ka waran waageed yareereedeen halkan wad soo mari jirteen ma qurux badnaa aad iyo aad buu qurux badnaa saqafkiisuna saqaf kale rogan oo wanaagsan buu ahaa waa flower iyo waxna duni waa haydo marka aad iyo aad buu qurux badnaa waxaan lahaan jiray kaam weyn uu ahaa markoo deer weyn uu lahaan jiray deerka imka loo muuqda xagga shan uu jiri jiray wuu dumay marka uu qurux badnaa jiray waana lagu ixtiraami jiray administrationka marka Ingiriisku intay aqal kala jiro ka imka halka ku xigeeyo qaar xagga sheeyo ay ku jiri jireen qolooyin kale gaaladuna marka way degaan waxa degaan iska degan wax dhawaatiin ma jirin marka ku dhigo nabadgelyo waa iska wanaagsan Ingiriiskana faantiisu fargelinta dadkii waxa si kuma badnayn marka waan soo gaaray dhowrka barasaab halkan ku jiri jiray mid Fisher loo jiray iyo mid Rees loo jiray iyo ninkii ugu dambeeyay magaciisa waa ilaawe ee berigi u dambeysay calankeena u taagay
marka way waqtigaas wuu jiray marka macallimiintii waxay diin dhigi jiray halkay deganaan jireen waagaasi waxa weeye aqal halkaas inuu soo mari doono ayuu soo mari doono waxa hubaal ah in iyana ay ku taalo magaalada mid ka mid ah magaalooyinkii hore oo la oran jiray Fardowsa oo iyadu gabi ahaanba dhulka la simantay walina ay ku duugan tahay taariikhdii ay xaafadaasi lahayd amaba si magaaladaasi Fardowsa la oran jiray dhanka kale waxa kale oo iyana xusid mudan in aynu milicsano dawgii caanka ahaa ee loo yaqaanay dawga Sheekh gaar ahaana wadadii hore waxaanu dul istaagnay dawgaasi waxaananu la kulanay qaar kamida darawalintii ugu caansanaa ee mari jiray waqtiyo kala duwan Foosiye Maxamed Yuusuf dhage waa gabadhii ugu horeysay ee martay dawgaasi hore sida ay noo sheegtay waxa si qayb weyn ka qaatay oo igu dhiirigeliyay aabahay Ilaahay oo naxariisto Maxamed Yuusuf dhagay ayaa aad iyo aad igu dhiirigeliyay gaarigana isaga ii soo iibiyay oo imaaraadka deganaa markaan ka codsaday hablana uu tixgelin jiray dadkuna waxay ku dacaydeen jireen hablo badan buu dhalay 7 hablood baan ahayn iyo 4 wiil marka hablihiisii uu ka faa'iiday bacdama uu isaguna dhiirigeliyay sidaas dabeeto gaarigii ku bartay markaan ku barto isagu i baray ayay igu kaliftay inaan buurtana ka baxo buurtana qof walba wuu arkay kii aan aragna waa loogu sheekeeyay buurtu ma aha buurta ninka caadiga ah ma aha waa buurta hadii la soo sawiray hadii dad hore arkeen waa buurta sida qalinka u socotay gaarigu afkiisu jarbu ka laalaadaa ninkii garanaya wuu garanayaa tii baan ka baxay 80kii baan ka baxay radio Muqdisho waa la iga sheegay ma ogtahay idaa la igu soo daray gabadhii ugu horeysay buurta Sheekh ka baxday BBC da lafteeda waa la iga sheegay marka sidaas ay ahayd buurta Sheekh waqtigaasaan maray wallaahi maalintii igu horeysay runtii waxay ahayd maalin aad iyo aad u yaab badan anigoo naxsan oo kulna jarka eegaya kulna dhinaca eegaya dhinacna buurtii baa ka qabanaysa dhinacna jarkii baa ka qabanaya waxaan ka baxay maalinta 5tii galabnimo ka baxay checkpoint baa jiray checkpoint ka jiray waxa ii wareystay ninkii
checkpointka joogay wuxuu igu yidhi gabadhii maanaan arag qof dumaroo meesha ka baxaysee ma mid nafteeda ka quusatay baa taha marka waxaan idhi may kamaan quusanne ilaa maanta yara jidkan waan marayo aniga dee wax weyn ilama aha laakiinse waxa loo soo wada taagnaa oo la wada arki jiray baabuurta ka timaada bariga bari iyo dee galbeed mid kastaba ha ahaadee dadka aan markaa sheekh u dharan ee ragga baqan jiray dumar iska daayo ragga aad uga baqan jiray laakiin maanta buurtan laga baxaya waa buur iska sahlan waxaanaan ku darsan lahaa dee maanta anigoon yarayno maasha alle 60kii maraya waan ka baxaa bishan August ee u dambeysaan ka baxa waxa kale oo iyana aanu la kulanay qaar ka mid ah dhalinyaradii waqtiyo hore mari jirtay daawadayaal hadda waxaanu ku sugannahay dowgii hore ee degmada Sheekh ee gawaaridu mari jirtay waxaananu la joognaa oo maanta ilaahay mahadiha ka gaadhay aanu nasiib ku helnay saddexda oday ee waaweyn ee aad arkaysaan oo iyagu taariikh badan ka haya dowgaasi isla markaasina ahaa darawladii ugu cadcada ee mari jiray waqtiyadii ay mari jireen iyaga ayaa inoo sheegi doona bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacayga la Maxamed Yuusuf Diiriye waxaan anigu ilaa 54kii markaan leesanka qaaday 54kii inta ka dambeysay baan ka sheekeynay anu buurta Sheekh ee hore buurtii hore Sheekh waxa mar ugu horeeyay horta baaburada dadka wada waxa ugu horeeyay baan ma arbeed intii ka dambeysay de Soomaaliya baratay oo marinaysay kuwaas aanu ka mid ahayn buurta waxa lagu mari jiray saacado maalintii waxa ugu horeysay 7 laga dhici jiray subaxii 7 subaxii baa la mari jiray dabeedna waa la xidhi jiray waxa laga soo bixi jiray 11 haddana ilaa 2 ilaa 3 ayaa la furi jiray oo laga dhici jiray buurtu waa hawl badan bay ahayd ma intan imika laamiga kale mid hawl badan bay ahayd haddana waa la mari jiray si fiican baa buurtu mari jiray iyo dirawladba magacyada buurtu oo de waxay leedahay meelo magacyo leh meel waxa la yiraahdaa dabeelweyn meel waxa la yiraahdaa dhariinta meel waxa la yiraahdaa dhagax Hargeysa oo nimanka la yiraahdo Hargeysa ay buurta ku dhifan jiray tarar ma waa jira isna kamid magacaankaas ilaa buurta horta aniga accident iguma gaarin buurta laakiin de buurada aanu socono hadii jeer uu gaari jiray qaar waa ka dhici jireen qaar way ku dhifan jireen oo buurtii gidaarkii ku dhici jireen hadii alla way badan bay lahayd waxa kale oo aan u sii gudbi doonaa Ismaaciil oo adeer adiguna maxaad nooga xusi kartaa oo inta ku sii dari kartaa waxaan ku dari karaa
dhagaxaasuna xagga deynka iyo xagga buurta labadaba uu ka qaban jiray uu sidaas ugu dhici jiray dee nimanku way xanaakadin jiray xanaakada darawalada ayaa fara badnayd laakiin reerkiisa darawalada nimanka loo gacan jiray ayaa kasii cashaay badan reer bari buu badan nimanka loo dhaadhiciyo sheekh leeyahay darawal looga doona xagga bari ka yimi jiray sidaas ma garanaysaa farsamada buurta ayay ahayd adeerintii aad maraysay waxyaabihii aad la kulantay adigu maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabuhu way fara badan yihiin lagala kulma buurta reer geediyaad la kulmaysaa adoo lagu soo fasaxay iyagoo laftirkooda waddadii adeegsanaya oon meel kale maraana lahayn xoolihii wata awrkii u raran yahay ayaad la kulmaysaa marka dhibaata halkaa ka timaado baabuurka waa la baktiinaya dabeedna awrta iyadoo isagoo baktiisan heed qura ayaa dhinaca loogu qabanaya la dhaafinaya xaggan haddii u dhacdo waa deenkii soo garanmaysid awrta maqal baa saaran dhibaato badan baa lagala kulmay waddada imise sano ayaad waddada ka shaqaynaysay ood maraysay in doora dee ninka waxaan ahay da'deedu waa farabanta waxay soconaya 90kii maasha allah dee waan ka yaraa waan ka dambeeyey garishbey waan hayay shaqeeyaan soo wada maray laakiin markii dambe waan mari jiray waddadan mari jiray darawal baan ahaa moogta waxaa soo wadaa dee waan maray imise sanaad maraysay in badan wallahi darawal waa ahay maray ilaa dhowr iyo 10 sano ahayd inta aad maraysay maxaa dhacdooyin aad noogu xusi kartaa maanta intaasoo sanadood kadib oo aynu taaganahay halkii aad ka shaqayn jirtay ee aad mari jirtay waxa inoo sheegay kugu biiranaya inta anigu hudsan ka soo dhaaway anaga baawur bay iga horreeyay ana tuugan hadii jiray waan horreey jiray anta mid bay iga horreeyay mara soo iga soo hordhaa waday ma dhaafi karo moogta wuu iga soo dhaardo waa doox yaro tiirada waa laga baxay dooxi bay iga horreeyay waan daba socdaa tiiradii baan ku gaadhay tiiradii baan ku dhaafay oo meesha meel la isku dhaafi karo ma ahayn xarif badayd Ismaaciil oo dawal isku xadi jiro xarfaan nin walba deegitaalkii ayuu ahaa ayo deefartaba jirtay marka farsadii baan ku dhaafay